marka sidaas saddexdiiba aan ugu jiraa marka sideed qolo iska dhaafe ma masili karo ma garanaysa baasha hadaba fikradda aan u soo dhaco taanu aan rumaysanahay arinta Soomaaliland iyo ma garanaysa Soomaaliya oo su'aashii ahayd baan soo dhacay ahayd war Soomaaliland xaq ma u leedahay inay go'do jawaabteeduna waxa weeyaan maya xaq uma laha Soomaaliland inay go'do sababta ay ugu lahayna waan sheegayaa runway oo ma garanaysaa 60kii xornimaan helay haddaan Soomaaliland reer Soomaaliland nahay waxaanan ku biiray dawladdii Italian Soomaaliland baan ku biiray oo waxaan wada sameynay soo wada marka loo eego sharciga international looga oranaya dawlad haddii ay ictiraaf raadinayso waa in markii hore ka samaysantay gumaysigii ka xorowgiisii oo ma garanaysa markii laga xoroogayay laga helayay ma garanaysa ay kataliska laba kooxood ma loo ogolaa 80nadii qarnigii 18aad iyo 19aad waxa la oran jiray waa reer Yurub kaliya qarnigii 20aadna wuxuu ahaa Afrika marka Afrika waxa la isku dhacay meeshii xuduud ahaydba in ma garanaysa dadkii helay ay noqon karaan marka way jirtaa arintaas oo sidaas waa la oran karaa laakiin shuruudda labaadna iyadana waa ka soo baxeen oo oranaysa waa in uu jiraa xuduud go'an iyo dad go'an oo aad xukumayso 3 milyan ee dheeraad ah 3 milyan bay xukuntaa waa run dhinacaasna waxa kale lagu xidhaa in uu dawladnimo ay sameeyeen hadda wayna sameeyeen oo dawladda hadda ka samaysan Soomaaliland waa dawladda lacagteedii leh ciidankeedii leh maxkamadeedii leh madaxweynayaasheedii leh la doorto madaxdeeda madax isku bedesho weeyaa waa run ti afraad ayaa inay gobonnimo jirto oo gobonnimo qaadati taas way hadaba ta Soomaalida iyo ta labaad oo aan sheegi doono labadaas weeyaan ta magaraysa ana xaq u yeelanayno waxaan ugu yeelanaynaa waxa weeyaan mar haddii uu samaysmay wadan cusub oo markii hore wuxuu doonaba ahaa mar haddii wadan cusub samaysmay sharciyadaas oo dhan waxay isbedeleen 1964 markii ay samaysantay oo AU ay samaysantay ay wax badan isku bedelay oo Afrika ku heshiisay xeer la yiraahdo uti possibilities oo as you possess inta aad haysataa ha kugu filaato meel xuduudda hadda jirta waqtiga la joogay kama boodi kartid taana waxa loo yeelay waxa weeyaan adduunka oo dhan baad isku raacsanoo in la yareeyo inay soo baxdo dadka go'aa qayb wadan oo ka go'da wadankii inay soo baxdo oo laba sharci oo jira oo adduunka ku caamaba la isku magaranaysa miisaama mid waxa weeyaan xaq uu bilaadanku u leeyahay in uu go'i karo in uu cid wax ku darsan karo in uu xataa ku milmi karo oo assimilation waxa la yiraahdo uu leeyahay taas oo territorial rights la yiraahdo waxa taan lagu miisaama oo trade looga sameeyaa sharci kale oo oranaya territorial integrity of the states oo inuu state jira oo xaq u leeyahay in xuduudiisii la ilaaliyo oo aan laga go'in sababta taasana runtii aad u xoog badan oo iminka adduunka inkastoo United Nationska iyo adduunku ka hadlo human rights individual rights laga hadlo haddana adduunku kama koobna dawladaha adduunka ama ururada adduunku kama koobna qof kama koobna waxay ka kooban yihiin oo unitkooda oo selkooda uu yahay unugoogu wuxuu yahay dawlado states ayaa unitka marka dawladaha xaqooga ayaa laga hadlaa inta badan sida darteed laguma dhici karo adduunka sharcigiisu ka gaabsadaa inuu dawlad yiraahdo waa lagu karaa xataa haddii dawlad jilicsan ay tahay lama oran dawladdu ma jilicsan tahay lama oran burburaysa lama oran waxa soo dhaw waxa la yiri dawlad inay jirtay dawladdii Soomaaliyeed ee 64 jirtana waxa loo arkaa dawlad jirtay oo rasmi ah ayaa loo arkaa ta ugu dambeysay ee aad iyo aad au adkaanayso inay Soomaaliland ku hesho wixii loo oran jiray magaraysa ixtiraaf ku hesho oo adduunku aanu ku dhici karaynin waa ta adduunka waxa la eegaa cid la siinay inta badan sida Suudaan oo kale waxa la eegaa dadkaas sida loogu cadaadinayo diintooda sida loogu cadaadinayo aragooga sida loogu cadaadinayo afkooga iyo cid ay yihiin sida loogu cadaadinayo inagu waa run dad badan baa naga dhintay xasuuq badan baa ka dhacay laakiin bayskiisu ma ahayn diin ما أهين أفلو كل دنيا هاي ما أهين ضد لو كل دنيا هاي لقد لو كل دنيا ما أهين وضد صوماليات وإسكم مدة
ayaa jira sidaa darteed adduunku kuma dhici karo oo morally ayay ku adag tahay inay kala gooyaan dad isku dad inay kala gooyaan aad buu adag tahay kuma dhici karo sidaa darteed wuxuu ku soo ururayaa warka kale wuxuu ku soo ururayaa dawlad kasta oo hadda go'aysa waa inay fasax ka heshaa dawladda laga go'ayo ama ha jilicsanaato ama ha jilicsanaanin adaba masaakilka dhacay waxa weeyaan Somaliland ilduuf bay samaysay 1900 iyo imisan haystaa xogaaba ay dhimanay good igu qayl hadii la yiraahdo iga yar jooji marka iga yara xogaa la yar hadal baalka khaladka ilduufka ay samaysay wuxuu ahaa very good ilduufka ay samaysay Somaliland wuxuu ahaa 1991 marka ay la soo noqotay ay tiri waan la soo noqonay baashi waxay ahayd burco marka lagu shiray si fiican buu ahaa adeerkay baa ka qayb gal xajdo warsamo oo dadka qaban qaabinayay ilaa shirkii boorama kii burco dadkaas oo dhan wada ahaa inta seegtay waxay ahaayna ka ilduufeen isaga aan ka wada hadalay waxay ahayd inay yiraahdaan bay ahayd Soomaaliya inta isku imanayso aan ka aamusno wax la yiraahdo goosasho markaasan ka hadlaynaa markii taa oran weyday ay yiraahdeen waan goosanay adduunku waa gagaxaya oo waxay adduunku u dhan waaniga lahaa unitkiisu ama unugiisu waxa weeyaan state kaas iyagu la taliyaan United Nations Summit ama igaad ha haato ama ha haato AAU waa unit kaas ay ka hadlayaan marka unit kaas wixii unuga wixii khatar gelinaya unstable ka dhigaya peace kiisa yareynaya xataa jaarkiisa marka daba ay ku wadnayso waxa soo dhan dabcan marka hore argagax bay ka qaadayaan horta taas ugu horeysa waxay ahayd in talabaad halka ay khatarta ku sii heedo waxay ahayd ciriiri bay isgeliyeen meel laga soo noqdaa ma jiro marka tirada waan go'ay meelad ka soo noqoto wadama ma jirto wala maricsiin lahaa waxa Ibrahim cigal markii Allah naxariistay shirkii boorame weynaan la qabtay wala yir maricsiin waxa oran lahaa aynu shuruudo waaweyn ku xidhno lama oranay waxa la waan go'ay lagama noqon karo hadaad ka noqotana wax khaayin baa tahay isna muxuu sameeyay distoor buu sameeyay 2001 uu magaranaysa dadka ka saxiixay 97 intii footaysay ay ku footaysay oo oranaya cidii ka noqota waa khaayin wadan de madaxweyne kasta meesha yimaada khaayin wadan inuu noqdo ka baqaya kuma dhici karaba inuu Soomaaliland isla markaa maxaa la yiri lama hadli karo dawladda Soomaaliland lama hadli karo waxaan ku mahadinayaa geesinimada uu muujiyay ninka la yiraahdo Silaayo oo 2012 yiri maya waa in la hadalaa Soomaaliya waayo waxay ogaadeen hadii la helayo ictiraafi hadii kalaba inay ku xiran tahay in dawladda ka go'ayso waxay yiraahdaan Axmed iyo Kuxiisana way yaqaan metropolitan state baa cid laga go'ayo metropolitan state waa inaad ka heshaa ogolaasho ama ha jilicsanaato oo ha hogaamiyo magaranaysa hogaamiye liito magaranaysa ama mid weyn ha hogaamiyo xaq bay u leedahay waa in magaranaysa la hadla marka uu gartay waxaan geesinimo Silaayo waxaan qirayaa inuu baarlamaanka geeyay Somaliland oo yiri ii saxiix inaan ka hadli karo in la hadli karo Soomaaliya sidaas 2012 bishii February 23 waa kii shirka u horeeyay London lagu yeeshay shirar kale oo dhan oo London lagu yeeshay Turkiga lagu yeeshay Djibouti lagu yeeshay UAE na waa ku dhacay haddana wax ka soo baxay ma jiro kii u dambeeyay waa lagu kala yaacayba sababtan wax kala ma arrimo xidhaya jira baxarkii markii hore ba Soomaaliland iskilisay ahaa 2001 sharciga ahaa lama go'i karo cidii tiraahda waa laga noqday kala go'i waa dambiile de guftiga la diraabay dambiilahaas ka baqayaayo kama hadli karo arintaas maxaa sii dhaafsan arintaas waxa sii dhaafsan kuwa Soomaaliya ka imanayay distoorkii aniga laftaygu kuwii ansixiyaan ka mid ahaa oo 2012 wuxuu oranayaa qodobkiisa koowaad faqradiisa saddexaad wuxuu oranaysaa lagama wada hadli karo kala go'a ummadda Soomaaliyeed lagama wada hadli karo marka meesha tagaan maxay la tagayaan labadii kooxoodba waa kaas waxay ku dhamaatay marka meel bahashiya maxaa hadaba xalku yahay halka loo socdaa maxaa la yeeli waa kana warfaana wuxuu la soo socdaa magaranaysa hawlihiisii walaalayaal waxa inagu dhacay waa identity crisis hadan Soomaaliland identity crisis baa inagu dhacay waxaan sameeynin wax ay sameeyeen dawladaha aflaxay sida Botswana oo kale ama Tanzania oo kale oo qabiilooyinkii wax ka xurubay waxay sameeyeen waxay ku dadaaleen inay haybtooda saxaan
oo Soomaali inay yihiin Tanzania inay yihiin Botswana inay yihiin inay maganas marka hore dadka ka dhaadhiciyaan oo loola ku qaadaan oo narrativeska lagu wada hadlayo oo noqdo midnimo ka hadlaya aan qabiilo ka hadlaynin aan gobol ka hadlaynin noqdo ayay ku dadaaleen ninka la khama loo oran jiray ee magaranaysa ka madax ahaan jiray Botswana wuxuu isku dayay mar alla markii uu ogaaday in wax khayraad yar la helayo inuu qabiilooyinka ku wareego jifiskii mid walba ka saxo yiraahdo hadii aynu wax helo faqri baan nahay ma isku darsanaa dadka waxmooda qaybsanaa dee faqri ba wada hayeen haa bay yiraahdeen waxba kama qabno meeshiisii baa laga helay khayraadka ugu horeeyay dhamaanka ugu horeeyay odayadiisii baa ku kacay jifiskii soo yidhi maya waa in anagu lahaana inteeda badan wuxuu yidhi waa idinka saxay arrintaas waana la wada yeelanaya wadankiina hadda saas ku barwaaqoobay oo wadanka wadamada ugu barwaaqaysan Afrika ayuu ka mid yahay maanta Tanzania Nyerere markuu madaxnimada qabtay sanad buu ka qaatay madaxnimada fasax oo ku wareegayay odayada si uga dhaadhiciyo inay wada yihiin Tanzania inaanay ahayn reer hebel iyo reer huddo iyo reer kale aanay ahayn inuu ka dhaadhiciyo dadka wayna ka dhaadhacday maantana laba tuulo oo ay jabcada qorma ka dhaxaysiyo qolooyin sameysay cilmi baaris ba isku dayeenay laba yaro tuulo oo midna ku yaalo dhinaca Tanzania midna ku yaalo dhinaca Kenya bay ka qaadeen research waxba la dhexdhigay waxa la ogaaday kuwii Kenyaankii inay ku heshii waayeen iskaraaceen kuwii dhinaca kalena Tanzaniana u aflaxay magalasho xoog sababtuna waxay maahayn kuwa Tanzania kan waxa isku arkay Tanzanian kuwii Kenyaankii waxa isku arkeen qabiilooyin Maasai iyo Hawiyada isku wada leeynay kana loo badiyo kana baashaqaad marka inagu waxaan u baahanahay identity crisis baa inagu dhacay inaan sameeyno taas aynaan isku dayna hadaan ruuqooyiga nahayna walaalkay Maxamed Axmed Siyaano wax kula talanaya talaabada ku wada geesinimadan ku wado hanad laga ilaaliyo dadka in loo akhriyo bahalka ma garanaysaa la yiraahdo narrativeska in dadku qabiil yihiin dadku waxaan noqdaan dad Soomaaliland war ama hal go'o ama hal joogay dadku waa inay noqdaan dad Soomaaliland oo siman markaasan ama ummadana wax la qaybsan karaa ama aan ka goosan karaa inta ka horeysa ee identity-geenu yahay reer hebel Soomaalina wax noqon mayso Somalilandna waxba noqon mayso farta u taagan